madaxweynaha galmudug Axmed Qorqor oo maanta Muqdisho u qayb galay munaasabad lagu saxiixayo heshiiska dhismaha dekedda Hobyo ayaa ka hadlay khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya isagoo sheegay in dekedda Hobyo ay fursad weyn u tahay shacabka deked la'aanta ah ee Itoobiya waxay ahayd munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen xildhibaano wasiiro ganacsato iyo mas'uuliyiin kale oo heer federaal iyo heer dawlad goboleed ah oo lagu qabtay hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho isla markaana lagu saxiixay heshiiska dhismaha dekedda Hobyo kaasi oo bilaaban doono 45 cisho kadib munaasabada waxaa goobjoog ah ra'iisul wasaarihii hore Roble Maasalaad iyo Liibaan Axmed oo iyaguna ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha galmudug heshiiskani wuxuu ahaa mid si weyn loo daneynayo madaxweynaha ayaa madasha ka sheegay in dhismaha dekedda Hobyo uu yahay riyo muddo dheer ay ku taamayeen reer galmudug isagoo hoos ka xariiqay in dawladdiisi ay ka go'an tahay dhismaha kaabayaasha dhaqaale Qorqor ayaa ku faanay in horumar badan uu gaarsiiyay galmudug sidoo kale uu sheegay in reer galmudug ay fursad u abuuri karaan wadamada deriska ah Itoobiya ay ugu horeyso isagoo hadal qaaday khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya dekedda Hobyo kaliya faa'iido uma laha dadka reer galmudug ee bulshooyin kale ayaa ku tiirsan doono waa meesha ugu habboon gobolka oo dhan waxayna ka mid noqon doontaa dekedaha ay faa'iideystaan shacabka Itoobiya markii la xalliyo khilaafka hadda jira ayuu yiri madaxweyne Qorqor wuxuu sheegay in khilaafka uu iska dhammaan doono isla markaana Itoobiya ay ku qasbanaan doonto inay soo marto dariiqada saxda ah markii ay taasi dhacdana wuxuu Qorqor tilmaamay in Hobyo ay tahay dekedda istiraatiiji ah oo ila dhaqaale u noqon doonto Soomaaliya iyo Itoobiya oo guud ahaan geeska Afrika Maxamuud Maxamed Axmed telefishinka Xamuud Muqdisho